waxaan aad u jeclaan lahay inuu kordhiyo hadda badrina qosolka ma yaqaan badri naftigiisa waa in tareegna noo diraa waan idin salaamayaa dhammaantiin yaasiin ducaale iyo wariye cali xaraare iyo badri dhammaantiinba waa idin salaamayaa kaftanka siyaasadana aad iyo aadaan u taageeraa aad iyo aadaan ula socdaa waan ku xeeranahay tixanaan ku ahay maxaan ku raadaaye waxaan aad u cosalahay haddii macquul noqonaysa meesha hal maalin isbuuci laga dhigo isbuuciin 2 maalin 3 maalin camal laga dhigna aad aan jeclaalahay waa mahadsantihiin yaada liinis waxaan rabaa inaa su'aal ku weydiiyo sidee u aragtaa kaftanka siyaasadda ay soo tabiyaan yaasiin ducaali iyo wariye cali xaraare iyo badri wallahi niyo kaftanka siyaasadda waa aad iyo aad baan ugu helay waxaan halkan ka salaamayaa oo kale yaasiin ducaale iyo baarkiina cali xaraare iyo yaasiin ducaale kaftanka siyaasadda inkastoo aad aan ugu helayna waxaa kasii jeclaan lahay inkastoo asbuucii hal mar ama 2 asbuuc hal mar ka dhigaa inay asbuucii 2 jeer nooga dhigaan si aan akhbaarahooda iyo si waxyaabaha ay ka hadlaan qaarkood runta ay ka hadlaan saa u dhageysano kaftanka siyaasaddana waa mid aan ka hadlin qabyaalad iyo qabiil iyo waxyaabaha xunka qaarkood ay ka hadlaan wax runta daacadda dhaco maasha Allah dadka dhan oo wada jecel yihiin inkastoo aan wada taageerno anagoo dhan wada jecelnahay insha Allah kasii jeclaan lahaynaa asbuucii 2 jeer nooga dhigtaan waana ku taageersanahay waan idinku taageersan waayahay kuwaasna waxay ahaayeen dhalinyaro iyagu fakarkooda iyo ra'yigoodaba nooga soo dhibay sida uu arkaan kaftanka siyaasadda iyagoo jooga Australia aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa waqtigooda qaaliga ah oo horeen kaftanka siyaasadda qaabka u daawadaan iyo weliba sida ay markaa ay u arkaan waayahay haddaba aan gudagalo waa kaftankii siyaasadda halka aad iyo jeer waxaanu ka soo gudbinaynaa waa studio yahayaga ku yaala magaalooyinka matana waa Minneapolis iyo waliba St Paul haddaba saaxiibkay badri maanta waa naga maqaya waa naga iyo cali xaraare bal cali xaraare aan weydiiyo bal waxa uu maanta u hayo dadweynaha Soomaaliyeed ee jooga adduunka dacaladiisa waayahay maanta labadana la kala baxaya sama aadiyaad badri waxaan u leeyahay qabowgi maanta ayu la soo kicilay waayahay waxaanu ka bilaabi doonaa yaasiin doorashooyinka Soomaaliland haye ayaanu ka bilaabi doonaa haye runtii waa arrin xasaasi ah aadiyaad oo dad badan ay u qaadan karaan in marka hadalkeenu baxo ayaa dadku oran doonaan halkan ay la jiraan iyo xaggan ay la jiraan laakiin de kama aamusi karno ma oran karno wixii doorashooyin iyo hawl soo jiray aynu ka aamusno barnaamijka inta kale sii gallo marka maaha macnaheedu cid aan taageersanay cid aan diidanahay laakiin sida wuxuu jiraan baynu eegaynaa dadweynahana marka iyagu hala soo baxaan waxay rabaan wasaas waayahay doorashadu si wacan bay ku bilaabantay haye jawi fiican aad u wanaagsan oo runtii dimuqraadiyad dad ilbaxay laga garan karo wasaas aad baa dadkoo dhan ugu hambaliyeen telefishinada caalamkuna afaf badan iyo ku hadlaya ay yaasiin ku baxeen barnaamijkaasi barnaamij aad u fiican doorashadu waa muraayada dalka ay doorashadu ku dhacaysa uu yeelan karayo ee caalamku ay u arki karaan wasaas waayahay doorashadii markii sanaadiiqdii iyo hawlihii codkii horta la bixiyay kadib ayaa haddana shaki yimid wasaas shakiga yimid ayaa wuxuu ahaa xisbiga wadani حزب معارضك هذا يقول شكي إن كل مية أي استعمالين خياموي ورن عشان أي عدك أقول بصلان أو أي وجوليستان وساس مركب واحد بلعبين كومبلين أيه ويعوضين عوش بلعبين هي دب ضمن مالك هذلي إلى مركب دم هيري قارسي سدتك وها تاجريش كسو دتك وكيل ذا وها إن أي كسو dib u soo gurtaan oo ay waddan tiraahdo anagu waa ka baxnay commissionka iyo hawlaha aan la shaqeynayno waa arrin aad sababtoo ah waxay eedda kuwaad saareen in ay heleen buugaagta waraaqaha lagu codeeyo lagu codeynayay ay ku jireen ayay waa dheregi haye buuga may cadaynin meesha ay ka keeneen iyo sida ay ku soo heleen waxay kaloo sheegeen in Dubai laga soo daabacay kaadhadh been abuura oo xisbiga kulmiye uu ku shubtay waliba especially magaalada Gabiley ka buux haye waaye wasaas dabeeto commissionkii ayaa tuhun fara badan iyo shaki fara badan bay geliyeen dadkii kalsoonida ay siiyeen xisbiyadu commissionka commissioners ayaa haddana dib uga shakiyeen
haye وأديكو أنا لابتن كودي بتاعي نبي فرسميسيد أو كو آمني وهدنا كاشك سن أولا ياسين أرمو حستبان مريا أما عدل تشرا تاسنا ويتمي تاسنا ويمن ساي هي شكيا يبوغا يروح كين ربشده كدا أي ميلا بدن هو أساس أو أي كم تاعي عرقابو أو أن هرجيس أي كم تاعي هرجيس أي كم تاعي هي برعنا وكمل رصاص إمك ورك جود بأشياء لا وقف كل دنتين أي أنا دعوي بل ضد كرت ينا حيجينا مركورة أي نرشدها قيب كميدا تصنو عرقا لا عليه تاي رجب هي الدنيا ولا سكري هي وايه ولي حالكم معها إن نبتقلد خلق أتجلسيد سي أدوحوشيد أما لقوه مقلو تاي رجبس يبابر رجبس يضد للايو يرساس ضد خاص لقوه لقوه ما حالك هرتيز ما ساسوي وحنا نحسن البحر نمدو سيد كسرتي إن لقوه وضه أو دعوة دا سين نبتقليه لو سوق بيو الله يرى لو سوق جوجل فريست وساسوي ضد كي أيا مدهرات السمينية ما قيلني ما هضد بسيل أو يقارنا حبك مدهرات حتى ما يقارنان أجندها wax la isku hayaa waxay tahay garama ma yaalo in ku subtay marka qaab baa ku qaylinaya taada waa inaynu xamar raacnaa waa inaynu Djibouti raacnaa waa inaynu Eritrea ku darsanaa marka mowqifkaasi waa wali aste waa wali arido caadi ahayd hadii la iga badiyo waxaan ku biiriyaa Eritrea ama dawlad gooniya ayaan sameeyay waxay noqonaysaa arrin aad u adag wallahi waa arrin adag iyadoo nin kasta oo Soomaaliba ay ku jirto waxay yahay in dad Soomaaliyeed oo walaalihiisa ay nabadgelyo ku caanamaadaan haddana waxyaabo far badan ba khaldamay waa sax dabeeto iyadoo internetka laga jaray Soomaaliland WhatsApp-ka iyo hawlahan cidna ku xiriir kareen ayaa qurba joogta reer Soomaaliland xisbiga wadani waxay fureen tashuush aad u badan internetka bisa u sideeyay WhatsApp-ki iyo adduunki wixii la isku hayay wax ka badan talaayi baa dhacday dabeetana qolada kale kulmiye ayaa ina difaac gashay haye meediyaha qurba joogta waxa ka jiray Yaasiinow qolal la isugu imanayay waxa laga hadlayay ay ahayd waxaan gaalada marka aydi waxa ka hadlayeen ay yiraahdaan below the belt yani wax aad u hooseeyo oo liita oo qabiil una qabiil haddana nuu reer hebel nahay haddana sidaa yeelin haddana sidaa yeelin marka dadkii baa u fahmay in laba qabiilo ay tartamis ana yahayn labada nin baa qabanaya marka in laba qabiil tartamayaan oo kale ayaa dadkaas tashuushka qurba joogto ay furtay waxay xitaa keeneen inay yiraahdaan waxa isdilay oo isu gacan qaaday Muuse Biixi Cabdi iyo Saciid Cali Muuse oo ah afhayeenka commissioners gudida wasaase doorashada fed haye fed bal isu dadaabi bay yiraahdeen oo sayid u dhigayaan waxa ku soo qoran Facebook iyo waxa ku soo qoran halkan warkaasna saliirad male xoog baan saaray waan ka daba tagay alla iyo wax ka jiray ma jirto marka horta Muuse Biixi waxa laga dhigayaa sidii nin waada oo aan miir qabin oo ninku doonaa hir ku fanayo oo feereeyo dadku uma arkaan inuu yahay nin mas'uul oo qadarintiisa leh oo aan markasta access u lahayn inuu ordo meeshii gudida maxaa ku soo daf yiraahdo oo waraqay kala turturso maaha meesh wax leedahay nidaam iyo kala dambeey cabanaysa ma imanaya Muuse Cabdiraxmaan ma imanaya wakiil leeyahay wakiiladaas soo hadla waraaqa soo dirsada markaas la eegaya gudida marka ma kala laha Saciid iyo Cabdulqaadir iyo Samson iyo Hebla ma kala leh qof si gooniya waxaan ay u xisaysaa ma jirto marka waxa la doonayaa la isku dhufto Saciid iyo Muuse Biixi ama reero oo kale qabiil loo kala safto qabiil oo la comments-ka dadka maangaabka ayaa markaad eegtid bal wuxuu sameeyay intuu meeshii galay ayuu iska feeray ninka baa lagu qaadaya wariya ragga kale celiyo war la anaga wax ragnay haye waaya wasaase marka nin u baabadinaya ninku doonaya wasaase codkana 700 oo kun baa codeynaya waa la isu miisaamay gobol wal intuu yahay cidii wax khiyaamaysan anu mika markii kulmida waxba khiyaamay iyo ma khiyaaman iyo kulmina mali cidii wax khiyaamaysan soo baxaysa waaya waxa buuga la isku qabtay ee ay soo bandhigeen xisbiga wadani
maanta ka shaafiyey oo kala hadlay gudoomiyaha gudida doorashooyinka horta iyagoo wada hadlaya hadalkii hore ee commissioner ninka gudoomiyihii waxa uu sheegay in ay adag tahay ama shaki ay soo gudbiyeen buuga waxa ku jira hadalkiisii labaad oo ah markii ay arkeen buugan inuu jiro in la ogaaday buugu meesha uu ka yimid laga shaafiyey xisbiga wadan loo sheegay horta klibkan aynu dadka daawano daawasho wanaagsan qofkii keenayna ka hadhi mayno sharcigaanu marinaynaa qofka soo dhigay yidhi waraaq codbixineed ayaan helay oo lasoo foorjargareeyey wuxuu ku gafay qaranka wuxuu u gafayna dadka waxaanu ku gafay caqliyadda commissionkana wuu ku gafay marka taa waxaanu ka qabnaa dacwo weyn waana kama hadhayna waanu la tiigsan doonaa maxay sharciga aan buuggii degmada berbera ee ahaa codaynta buuggii codaynta waanu ka shaafinay waananu isla qaadanay waananu ka heshiinay waananu u sharaxnay waanayna la qaateen guddoomiyaha iyo madaxdii qiimaha lahayd ee la socotayba caliyo waxan wey waa ka shaafiyey ka wada hadleynay buugaasi saaxil baa lagu sheegay waana buugaagta markii ay buuxsamaan doorashadii mid laga soo tagay bay dhici kartaa miska lagu ilaaliyay waxa dhici kartaa toddoba qof gudida joogtadii wali wadana ka tirsan yahay oo cid walba waxa weeye toddoba qof gudiday doorashadu de horta waa bini aadam maaha malaa'ig waxbay khaldi karaan laakiin wuxuu waxa loo baahan khaldo in la qabto la saxo gudoomiyahan wuxuu inoo sheegayaa marka in khaladka la helay lana sixi doono waxa ku jirta qaanuuntooda meesha la yiraahdo khalad baa laga sameeyay cod baa beenbeena la geliyay in la kansalo oo mar kale doorasho kale ka dhacdo hadii lagu helo wixii yani optionno badan baa jira wixii ma aha un option ka ugu horeeya hadii ay sidii aan rabnay u suurtagali weydo badan badan socon maysa arintaas wixii baa dib la isugu eegay waayahay wasaase xisbiga kulmiye waxay ku andacoonayaan in buugga iminka xitaa konton qof ilaa 100 qof buugga la helay ayba ku codeyn karta marka waxa leeyahay hatta qof kaliya hatta buugga hadii la siiyo xisbiga kulmiye 80,000 cod ayaan ka horeynaa buugga loo fatay kusoo doorashadu waxa u dhacday yaasiin codadka aad filaysid inaad gobolkii aad u dheerteed ka helisid ayaan marka qaar kood ka helin wasaas oo weyn oo lagu tirinayay wadan inuu noqdo xisbiga kulmiye waxbuu ka helay meesha hadaba ay u dhimatay xawey ee sida doorashooyinka Mareykanka oo kale Ohio meesha la midi waa balagubadle meesha lagu kala tagay marka balagubadle oo loo tirinayay xisbiga wadan inuu helo ayaa isla number 1 kulmiye noqotay warbaasha waxa ka dhacay inagu ma oran wali xisbigaas guuleystay laakiin sino warka hore gabadhay oo aan islaahayn wadan cod baad ka helaysaa ay ka heleen marka horta wuxuu waa wax aynkaas tan xadista timi iyo isdabamarintu caalamku dhan bay ka dhacdaa algoor ayaa bush baka ayaa xaday Hillary Clinton Donald Trump ayaa ka xaday idina isbedin hadana waxa la odaga markan uu gashay marada baash ku gasho wallahi hada u daaya marka waxaan u baahanahay in dadka horta ay bartaan tanaasulka iyo in laysu hambaliyo la yiraahdo warhawshi waa kaasa ama xaday ama kulli ku guuleysatay waa ku ka dibadna laga sii iyo muddo wasaas labadoodaba baan eegnaa hadii la doorto labada shakhsi madaxweynaha u cararaya ayaan eegi doonaa labada xisbi horta intaan xisbiyada gelin waxaan eegnaa waxa jiray gobolada Sanaag bari Xangalool baran damala xagar ceelbu meel far badan oo aan ka soo degmayna dhahar ayaa iyana waxa ka socota riwaayad cajiiba wala isku haystaa dadku qaarna waxa aaminsan in la codeeyo qaarna waxa aaminsan in la codeeyo okay ma sii tahay iyaga ikhtiyaar kale wasaas intii codeysay ayaa caadi u codeynaysa caadi u safku taagin ay u taagin codkii bay bixinayaan ama wadan ha siiyaan ama cid kale siiyaan ama kulmiyaha siiyaan markay codkii dhamaado ay birito waxa sameeyaan mudaharaad ilaahay Soomaaliland ma rabno والله تنسى ولا عصاده يا قال تي وعصيد ويتري سمع وايه هي بوتلاند باين روايات كلا ودا ولي روايات بدل بوتلاند انت كلا كهدل مايسو
gobolka Sanaag iyo Sool labada gobol waxay ka hadlaan markay arkaan doorashooyin jira marka doorashooyinku goormay dhacaan 7 sanaba maray maalintaas la sugaa 5 sano kadib ayay ka hadleen marka maxay sameeyaan si tashuush ay u furaan ayaa iminka waxay u soo direen baran iyo xingalool iyo dhulka waxay u soo direen wafdi adag wafdigaasi faa'iido uma wado reer Sanaag إلا خربش مويان خربش هذا ضبع كل من كروها وصدر إن ما كان وياه وفدقة لما صدروا مرك أباري شرتو لما صدروا مرك النبدي شرتو وحلا صدره مرك الله يسبرون كر الله له إما كان تكون فنكرتان لبقرة مدح السكري هي وياه شكله عبد الله محل عرقاس أي خط كاردقة خط في عني هي قد عند وصدره وفود وصدر السنة الصول هذا يشير معها قدوميها برلمان هي ده هاي بروفايل ما هيفي ويت ورصاص معها هي وحويه وصدره oo sanadkan kii koreeyay uu sodray sanadkan uu sodray kooxda fanaaniinta ee geeska Puntland kooxda fanaaniinta geeska geeska Afrika Soomaaliya ay leeyihiin xaggaasna waa joogaan xaggan waxa jooga kooxda fanaaniinta Puntland waxa kooxda fanaaniinta madaxa nin la yiraahdo Cabdirashiid Jibriil waan dhalinyaro oo gobolka u dhashay gobolka Sanaag haye garan la yahay war madaxweyne meeshan marka ay waalantay maxaad igu dirtaa markay nabadda tahay iskuuladii soo eeg caafimaadkii soo eeg ima tiraahi soo dhammaad garan haye marka Somaliland iyo Puntland la oran karo dadku isku qaban karaan ayaa itiraahdo meesha aad inta yar kuwa garan laay haye waaye oo soo ordaaw haye yar kuwa heesaana wuxuu heesaa Cabdiweli ayuu heesaa heesa jacayl ma sameeyo haye laakiin kuwa lagu amaanayo nolol yaxas ayuu qabtaa وايه ماشي هذا هسه كما سعودان دغال با كسودا ماشي دغال كدحي كري ayaa loo diraya fanaaniin iyo gabadh wala isku daray ayaa la isku daray haye wax la soo eega marka xingalo oo kale ayaa waxaan ku tusayaa isagii oo doonaya in reer xingalo iyo Somaliland inay bari isku dhuftaan maxbad fanaanki وليه كارن أنت سوق هذا العدية أيوة كارن كمارتا وانو قبلنا هي يا كنا وحاله مصبيحيو عروة كاسو حنا قطع فمعنى ذو حوي مصبيح حمد سمال لنا عرض حلقا كارو دقال سمية وقوابو دقال داون بشارين يا كارن كي ومصبيح وقتها قلين إن عدك الغسيو إني كوين أوراكسان شعبكو iyaga oo xora keenay oo ku soo wareejiyay waqtiga dawladda Puntland maanta wuxuu wuxuu musabbixin aan ka adkaan jiray reer Puntland awooyaasha weydiiyeen hal kelmad baan isaga oranayaa horta muuse waxaan ku leeyahay kaarkii aad codka ku doonaysay waa kan aan gacanteeda ku jiraa kii Cabdiraxmaan Cirro isna codka ku doonayna waa kan oo gacanteeda ku jiraa waxaan idiga mahadcelinayaa sida aad u soo dhaweyseen wufuudina idiga timi Puntland waa ku mahadsantihiin wadanninimadii iyo dhiiranaantii iyo geesinimadii la idigu yaqiinay baad muujiseen tan kale waxaan idigu hambaliyeynayaa heeganka iyo dadnimada iyo maxay ahayteen war fanaanku waa jawaabi fanaanku ورفنا كاي مش قبط ورفنا كاي يا ورحمة على حاش قدوميها وصدره isaga ni weyn oo khiyaar dadki intuu la hadlo la fariisto hadda ci hayraado war waxan waa iska mashaariic ninkii doonayo inuu ku iska ridhaa kii kale oo iska amso iska seexo waxna weeg baan ugu dhaafay ahna wareerina laakiin yaa wiil idin ka dhiman oo kaadha kooda waa ku ururiyo waxa ka dhacay magaalada baran leeyahay hadda ka hor dad la Somaliland ma rabno ayaa nin la Somaliland baan rabno ama aan ka tirsanahay ayaa baas mariyay inna lillahi wa inna ilaahi ka dhigay
inna lillahi markaas way dhaawacmeen qaarkood ay dhaawac halis yihiin deer ugu hordiyeen haddii barani ay ka tirsan tahay Puntland oo kale maxaa Cabdiweli intuu u tago baran uu ninkii u soo qaban waayay maxkamadda taag waayay shalba kuma lamda marka dhiigaasi jiro baran kama tirsanaa Puntland marka heeso iyo fan jiro way ka tirsanaa ya war heesayda la diro waayahay fanaanku waxba ku soo kordhiyay haye haddaba labada xisbi xisbiga wadan iyo xisbiga kulmiye ayaan anigu waxaan raahdaa de si kasta ha u kala duwanaadaan waa laba kulmiye oo tartamaya ruuxa waa kulmiye labada waa kulmiye inay isdiilaan ba xaggana dee wadani safka hore oo dhan raggii hore u ahaan jira kulmiye baa jooga ayaan baa jooga haye oo xirsi uu ka mid yahay jawaan ka mid yahay muuse biixi maxaa la ninka la yiraahdo maxamed biixiyoonis oo ka tirsan yahay nacnac ka tirsan yahay haddii ilaahay ku reeyahay wada kulmiye balad aagad la naga waxaan marka haddii xitaa wadan ay qabtaan cabdiraxmaan baa wadanaya meesha isbedelkii waxa ka jiraan waxa soo socda haddii wadan ay qabtaan xirsi iyo ina bixiyo rag beri laga yar jisbiyo carada ay qabaan dabeetana kulmiyad dambe maqal karin iyo madaxa la soo xin oo doona ragaas horta soo socda haye waayahay dhinacan kale waa kulmiyii asalka aynu naqaynay beri haddii muuse biixi qabto waxa uu soo kordhin karaa waxa weeye in rag magaca kulmiye ahaa oo dadka wareeriyey in dadka laga qariyo أين بهرت إسبدل كيني كذا محمد حاشي وكمل إنك كمل احتوي تشوي له هذا على ذلك أفكسان كهذا ليه يدك وينك هي عدانيو إسكوي وروح أنت نقدر مرك الله هو إنه صارت ما أقدر وسيركوا أنت نك معلن تهايست يبيع وسووا نضع على ذلك مش إسكاله ما بدأ عبا مبدأ ما أمس ليه مريدي كره إن سنة الريدو أول يا كل مية إسبدل باكرة نبدأ وحياها سو بهين قرض موسى قرض موسى إن حبايا سبدل كاس وياه هي إيانا أنت أينو كدين وعن أوريجينا خير سومال conclusion إن هلان دولة عدالة هي السنان وضدكم هي قبلوا أي ولا استحقلان وساس أنا المو يمويل أنا كقدر منطقة وساس وي يسافرش وحنقول أوريجينا إن أي ستنا سنان ولا بدو كيف بديا كلا وهم بلي وسلام يا وساس وي أنت أيام كل جبد دون هاي نتيجة ولا ما يصبح وشو النار وحن كوا أننا أنت ضمن قف أي جد ذا كدكتين إني آمنا أو كل سنة هل ما نلبس وشيدا مركا إن هدون الله ده أبال مريو الله أدب ما سنت هوش سوق أي مذي لكن إن الحق حكتو ينا عيب كله أي كل تودم بيسان كل تلني وحور رسمه حداد ميلسان إذا كقول إن الصداونا سان ما أردنتها وكوينته مريكان بعدين داونا شينها يداونا بعدين داونا شبان بعدين داونا حقات كنتان أياد بريتو كو عنا مالس أوضك كذي أدوك ما كان نود هلا يلاسين لنا نود هلا يلاس نود يلاس واي أن مقالة مقدشو أيان مركو جيندونا هي وحس عشان وزيد وسير قبل سنة الرماها مصيبين كهرتجودا يدرجار كبير بين آدم مريم قاسم مريم هو أساسي وريم حد بغشي الآن هذا ما راح نصدق قبل سوء السبح ما لنا يا ما الرماء هولو العقود با ما الشغل يدو لو دين وايبا كل عشرة وحويه أن وحكوس عتي فرقلين شقديده أي فرقلين تاسي وهاي العقاها يدقاها يقرقار كالسينيو إن لو سميه بجود كله أو رئيس وزراء وحفيز كيس كسمستي سيد حفيز كيس كسمست أجاسمه وسمستي هي أجاسمه با وحصل على البودي قبل ما سو قادو قبل ما تلفزيون حاجة دعوة أجاسمه يجود دي قرقار وسمستي خير أو تيفي لعجة قدوميس الشيخ عمر والله عجا كاني وأي قدومي قلاص لزينة قبل دو يابت هي والماشي الماضي وزير كا مسانية سوى سكفر دام هي لا قبل واحد على قد جاي إني كرسي يميسون يمقع ما يتاجتها وأي سكفر دام سيدا نحن كحين كبتلاني نحن كحين كسومال لاني إن عمي سيلع بكرة قطيبش أي بحاجة كنا
waxay tiri wallahi waa dhibaato sida nimanka yeeli maayeen waa sacasay wixii turtay waayahay dawladdan farmaajo iyo khayre maxay la soconaaday haye dhibaato weyn maxay arrin badan baa jira ma ashabaab baan caabiyaysa ashabaab baan eriyanaysa ashabaab baan iska la dagaalamayna arrimo far badan baa jira waa ka weyntahay madaxweyne farmaajo horta wuxuu ahaa intii dawladda ku meel gaarka madaxweynayaasha soo maray ninkii ugu rakaabka xumaa alla ku rakaab xumaa markaad madaxweyne tahay haddaad nin miskiina tahay haddaad nin khatara tahay waxa wax qaban karaya waa rakaabka golaha wasiiradu hadday yihiin iska ciyaalka xaafadda abu waxa ma gaaris horta ciyaalka xaafadda ayay u bateen oo kulli waa ciyaalka xaafadda rag yaqaano oo soo loo labis wallahi suudka halkaas ka soo iibsaday ya wallahi dawladdii ayaa haddaba iminka la soo gelaya haye inanka la yidhaahdo ra-iisul wasaare xasan cali khayrana ninba waxbuu ku naagsan horta anuu taladii u dambeysay dawladda ayaan siinaya horta ninka la yidhaahdo farmaajo xilli khaldan buu soomaaliya yimi وحيل خدمبا من داعاد أو مسكين أو عاد فديسن أو آد أفقابا سومالي حلين هو بهنا وحيل خدم واي حلي خدنا هاي مادة إنك أو رزوزارة كدكتي وإن دنيا روح برتي إسنو واحد مودة عيارتيك وبدع عيار وردي أو نحف سمو بلان هاين الوزارة دار ما تبدأ الضف يوسف وان ديار هين بقول لك كين وراء حاجه وراء ده ماشي معنا وزيرك سأله وزيرك بحيث ددك دي ددك حفيزك وزيرك الماليه كما بحبا الرول كسر كل ما حق سو غلاي دبتنا بيله وزيرada khatarta isaga iyo Maryam waa rag la doonayo in la cuno in ay wax dhalin karaan wax qaban karaan ayun ba sallaxaya أساسا لو قلت بيلا شركة خميس لو قدم بيسي وأفقرنا لو حمش كتير وسكبح وسكيتي اسمه عسيرين لكن شركة خميسته وكبح أيوة سكبح وأساسي وياه دتك الدنيا هذا بقى إن وحلاقة قبته الدولة دن عن وحبوك سكر بندي هذا بقى أنت كم وغضون شاشة أي نوعنا رئيس الوزراء وحلاقة يا بقى وحيد إن لبدل هرت سقلفت قصة تاسو درن رئيس الوزراء وين لقى دقا نين مقالة مقدسو أي دتك سوق بدين مركا حقيقة لا يحدوي ما دتك سوى وحكاني دتك سوى تاجرية وحمانتي كتاجرية ما حمانتي كم تاجرية حمانتي باللقبانية الشباب هالكم مرتي حسنا كذا عليه لكن هو نين وركي أردن هيا وحودن بوجي دت كراد وهايستا إن نكن وياه هو جامي هودي وياه نكن ما يلا كلام حافظ كل دول مقدسة كي ماذا لو تشوف ما والله شيء دوش على جمرة هو حيرك حسن خير رايست دولدن وحيا أن سيدا لو قد جيها وإن حسن خيرهم لقى تورو مش لقى تورو وياه أرنكاس دولة دبي ونقطة دتك اللي تهوسي هاي إن دولة أنا حق سو كرنين مضن إن لبدلو إن لبدلو وحكم يوسف قرات سو بسو كرنين وحكم ذا جح ما بيشو قربين هاي أو سو وزير أرماه جودها أو ماضي الصومالي فضل على كترسن أي ميكروفون كله سو يستاجي بلدوينه شهير شباب نيك بدحين عن نقطة إلهي أمر كيس وين حوالنا النقطة أي كله ورنيكا يا نقطة مركا نيكا سنة وحمة رياش كتير أي كتير دولة ده فضل على الصومالي نقطة أي كلها هاي الصومال أي واحد هاي حدي إسقاط قبضة أي دمان ويدو إن عبد الرحمن عرو أي كدكتان وزيرك الرماه الدبدة جمهورية الفدرالية الصومالية. أيوة وريات شغف عم بوستاي. هذا ورك غار بكفتن. يومن أملاين دونا. لكن حقيقة لبته حاسة. أي هاي. ساسة هاي. أنت أصلا هالكا. أي كشرته. هاي. أن جدي الله صار إن صح حقيقيا حوشي إن لو ديبي قلبي رجع دولة إثيوبيا. أي جنانة كي برلمان كأسوق بيه. برلمان كنا أي دوت كياشة. برلمانكو. waxa ay soo jeediyeen in ay khalad iyo gef iyo meel ka dhacayd in qalbi dhagax
ها الصوماليين وساس loo dhiibay Ethiopia وساس aniguna waa aniga hore u sheegay waxyaalaha ka jira Soomaaliya imika Muqdisho iyo meeshii laga soo qabtay oo ahayd galmudug inkaartii qalbi dhagax ku dhacay ila qalbi dhagax markii ay dhiibeen waa tii dhulka isla gashay galmudug madaxweyne ma la tuuray ilaahay hada madaxweynaha sax lama yaqaan galmudug madaxweyneedii baa la garanay odaygu waa kii qeylo ku dhuftay odaygu madaxweynaha ka ahaa galmudug xaaf qayladu ku dhuftay weli uu qaylo shakigu qaaday ilaahay hadda habeenku 4 saacadood buu saxdaa waa inkaartii meesha ka dhacday inkaartii baa ku dhacday laba dhagax ayaa ku dhacday inkaartii kale waxay kala qabsatay qaraxyadii ugu cusbaa ee ummadu ku halaaganto ayaa Muqdisho weli haysata waa inkaartaas way waxba laga inna lillahi wa qalbi dhagax inkaar arrinkaasna sidaa ayaa ay u taala inna wali wada ila wasala mura waxaan eegi doonaa qodob ku saabsan oo wacyi gelina oo doonay inaan ummadda u sheego marka uu qarax dhaco yaasinu dhismihii baa soo dumaya dabeeto dadku waxay u qaysanaan in dhimatay iyo in dhaawaca dadku ilaahay amarkii iyo ambalaasidii dadkan gargaarku waxay xoog saarayaan meydadkana guraan inna lillahi meydkii ku raya marka meydka nafta way ka baxday waxa mudan in xoog la saaro dhaawac in la guro dhaawac meeshii laga la wardo dhaawac horreysii mid baa dhiig baxayo iyadoo meydka la kala gurayo ay mu dhiig laanta ku dhimanaya inna lillahi ruuxa balday marka horta ninka gargaarka u baahan waa ninka dhaawaca ma aha meydka marka dad badan ayaa iyagoo la hakraday dhintay saacado marka kan dhagaxu ku jiifo iyo kan qaylinaya iyo kan dhiig u daayo kuwa horta hal guro oo iskaalaha la sii geeyo meydkuna si tartiib ah loo socdo wasaas inta hadii la sameeyo waxa la badbaadin karaya dad fara badan oo maato u badan oo ciyaar badan oo ku dhintay ama ku dhaawacmay neefta ku naf waayay ma wasaas marka arinta Muqdisho ay bay khusaysaa meelaha kale qaraxyadu kama dhacaanba way toddobaadka hore wanaga sii deynay in dad badan oo Soomaaliyeed meel ka dhac lagu sameeyo oo ay kamid yihiin dadka inta badan curyaaminta ay Soomaalidu u yeedho ama dadka lixaadka leh aad loogu taagtaagso arrinkaas markuu dhacay dad fara badan baa la soo xidhiidhay waxaan ogaaday dad fara badan oo lixaadla oo shaqooyinka lagaga eriyo lixaadkooda inna lillahi taasoo daran case mid kamid oo halkan ku hayo magaalada Hargeysa waxa daraw lahaa oo gawaaridan xamilka dukhaanka waa gawaari yar yar wali way iga dambeeyeen oo taxi ya gawaarida yar yar taxiga maxaa la dukhaan ay waday dabeetana ciyaal buu geyn jiray iskuulka ninku intiisa sare ma arkaano lugaha iyo sida u shaqeynayaan hawlaha lama socdaan marka ilmo yar baa hooyadu u sheegay wuxuu yiri ninka darawalkii waa nin عرياني الحال dabeetana gabadhaasi dacwad bay u gudbisay iskuulkii waxay tiri ciyaalkayga ma qaadi karo nin curyaana dabeetana ninkii sidii buu shaqadii ku waayay waa saaxiib ciyaal carruurtiisa korsada oo haddii ilaahay ku reeyay intaa ku noolaa oo lagu diiday labada lugood maxay mid u shaqayn weyday oo langaro baa ama labadaba u shaqayn waayay waa dhibaato weyn dhibaatada ummaddu haddii aanay ka bixin iyaga soo noqonaysa iyaga dhibaatadaas ku soo noqotay wala badhaga xokay wardadka wax eeg waxa lala ficiltamaa oo lala loolamaa nin xoog weyn la xadlay ma waxa lala dagaalamaa oo lala culloobaa oo lala loolamaa oo lala tartamaa nin la xadla miskiinkaas xageen ku warsan dadka wada warsan marka dadkii waxaan wali waqti uu saamix leeyahay in aan ka hadlo sida ay Soomaalidu ula dhaqanto bisadaha eeyda dameeraha xayawaanka sida Soomaalidu ay u aragtay iyo sida adduunyadu ay u arkaan xayawaanka taa waxaan u soo noqon doonaa markaynu dadka aan dhamayno dadka laga dhamaanay dadka ka dhamaan lahayd arrinkaasna waxaan eegi doonaa isagana xoog baan saari doonaa in ummadda Soomaaliyeed ma soo joogaan gobolka soo joogaan in dadka walaalahooda ee ilaahay amarkii deed kullu xaad beelay ay gacan qabtaan oo ay hagaajiyaan oo ay niyadda u dhisaan inay niyadda ka diraan oo iyagu ay la dagaalamaan wasaas waayahay saaxiibkan Martin Stephen Martin
ayaa soo geli doona saacadaha soo socda ayay Minneapolis warba jira haye waa hawliya waa hawl lama wada waliba wararka uu inoo sido wadiyaas ayaa ciidda ka badan Dubai baa hadda jooga haye ilaa biri ayuu soo geli doonaa haye Maxamed Saciid mulkiilaha shirkadda dahabshiil ayuu la kulmay haye dabeetana waa la sheekaystay haye Maxamed Saciid wuxuu ku leeyahay barnaamijkii qiimeynta iyo barnaamijka kaftankaba waa barnaamijyada markaan waqti helo u fiirsado aad u daawado hase yeeshee mar baad meel kaga dhacdeen oo barnaamijyadii qiimeynta ee musuqmaasuqa ee shirkadaha waaweyn ee dahabshiil ka mid yihiin iyo kuwa kaleba ayaad musuqmaasuq waxaad iga dhigteen number 1 lama runka tuuga iyo wixii arinta waad ugu degdegeen arinta ugu degdegtay haye dabeeto inta kale laakiin aad buu soo dhaweeyay haye wuxuu sheegay Maxamed Saciid waa nin iska hambala oo aan u ekayn dadka lacagaha isfaanfaaniye ee magaca Soomaalida waa nin Soomaaliyeed halka shaxda iska ciyaara oo aan laga garan inuu yahay nin milyaneer marka mulkiilaha dahabshiil balorta sawirkiisa isaga iyo Martin aan iyagana ku soo gudbiyo wallahi waa wali dhalinyaro way dahabshiil waa nin dhalinyaro waayahay haye odayga marka arrinkiisa markuu Martin yimaado ayaan isla eegi doonaa inaan odayga xaal siino iyo in odaygu uu qayb ka yahay waxyaalaha jirjira oo aynu numberku u bedelo halkii may uwanka ka ahaa aynu eedhi meelaha labada arrimood noqoto ayaan eegi doonaa aan gabagabadii barnaamijkeena ayaynu mari doonaa runtii gabdho fara badan ama haween fara badan ayaa yaasino ila soo xidhiidhay dhinaca iimaylada kaftanka siyaasadda barnaamijka qoyska aynu ka hadalnay waa maxay sababta ay haday jeer isu furaan lamaanaha isqaba waxay isu jeclaan waayeen maxay u dhamaysan waayeen xilligoodii ayaa wanay ku eegnay qodobo badan ayaan soo jeedinay aad bay u ahlan aad baan u soo dhaweeyay inagoon u kala yaxan rag iyo dumar baan u kala yaxan xalku laba dhinac ka yimaada ayaan waxaan eegi doonaa qodobada muhiimka ah ee loo baahan yahay xoog la saaro maalin boqolob ayaan eegi doonaa waxaan eegi doonaa qodobka la yiraahdo isqurxinta ninku haddii xaaskiisu ay qurux badan tahay wada ilaahayba tuso inay qurux badan tahay qaar baan ilaahay tusin haddiiba ilaahay tuso ma malaynaysaa inuu gabadh kale uu damac ka gelay ama uu eegayo meel looma socdo okay gabadhu diiniyan iyo akhlaaqiyan ba waxa wanaagsan in gurigeedana uu qurux badan yahay oo ay hagaajisto iyaduna ay qurux badan tahay okay de ma oran karayno toddobada cishaba gabadhu sidii arooska hayso qurxiso gabadhu gurigi hawl adag bay ka haysaa oo mararka qaarkoodna ciyaal baa leedahay marka cali ahaan waxaan u talin lahaa bal at least weekendiga 2 maalmood aad ha qurux badnaato oo ninkan ha arko in xaaskiisu ay gabdhaha kale ka qurux badan tahay balal ma arko oo duruucda la yiraahdo sheet iyo maxaa magaci kale baat miya la yiraahdaa la yiraahdo in kuwa hawshooda in la yareeyo wala yiraahdo kuwaas in la yareeyo warshada soo saartay haddii ninka uu taa la qabsado arrintaa waxay keeni karaysaa wanaag fara badan ayay keeni karaysaa malihi dumarka Soomaaliyeed marka guriga joogaan ma qurux badna malihi oo arrinka uma quuro laakiin waxa leeyahay sida ay ku qurux badan tahay ee ay ninkeeda ku soo jiidan karto waa sidaa waa saasi inagu inta badan dhaqan ahaan aad ma nambaran tahay gabar baa sheekh la soo hadashay sheekh bay dhageysanaysaa sheekh wuxuu ka hadlayay arrinta isqurxinta buu ka hadlayay sheekh wuxuu kula taliyay in ay qurux badnaato oo ninkeeda isu qurxiso halka ay xafladaha isu qurxiso ama markii meel tagaysay dabeeta gabadhii baa taladii raacday gurigii oo dhan bay bedeshay neefta si fiican bay ka dhigtay markaasay bukhuur baa jira horta uu sida markaa taqaanaa nin anaa kugu dhaama anaa reecadmeeda bukhurka ugu hadlaysay mid cadan laga keeno ayaa jira oo la yidhaahdo isku soo haad ayaay kaas waa khatar kaasay ku shiday dabeetana ninkii oo shaqo ka yimi malaha iyaduna dee waxay iska dhigtay si la yaab leh aroosad oo kale ninkii baa soo galay su-aashii ugu horreeyay waxa weeye waxaan ku yidhi maxaa dhacay
isagoo afriisandee markaasay tiri waxba haye meesha wuxuu yidhi yaa inoo yimi يا ورجعت يا ويبي وكنت جوابته حتى عندنا إنه ما يمن هي وقادم واي هي وحيري من مرتبة إنه تبي هي مايا هي ما حد عبر قولي يسوي هاي ستار يقول روح بدي ما إن قولي قبل الصوت قلبه أيه لا بتشوف مسؤولية ونود ما تهدي بركة شيخ قبل الدبون نقطة كلها شيخ تي أرنت هو كسر درتها غيرك هو كلا تقبل تاجي وحول لي هاي ماشي واحد كلا شيء حاجة هي بركة أنا وحنا والله سيد قبل عسنية مر قراه وذا بدرناه يرير سووا له قبصته سووا له قبصته وما تكراس لين على الصفة هي صفة كصفة بدله أو صوت قلق إن كراس حوالي لا بدري ما أنت كنت الداهية دي ما أنت كنت برفم كلا قلق يدي أي مربى نوع لكن هدي ما نقول أي ذهب كنت صوت صوت أسبرسته ودرك يوقف صوت ما يلك ويابه ويابه واي تاسنا واتا قبله وحايرة ترى كلا أي تاي marka ay report siinayso dad kale oo ay ninkeeda ka hadlayso dadku gabdhuhu way soo wareystaan always inta badan wasaas waxa ay ka hadlaan gabdhuhu ninkaygu saas uu sameeyay saas uu maaldood uu xumeeyay sidan uu igala ta kalena intaan leey waxa ku leedahay adigu i qarsaba ana fiican ba 7 maalmood ila ma hadlo marka mid waxay keenaysaa intii negative ka marka gabdhuhu waa in isku dayaan horta ninka inta wanaag uu leeyahay bal ma ka sheegaan inay keento oo tan wixii ay soo waday inta laqdo ay tiraahdo nakaagu bix haygu wanaag sida iyo sida ay saabu leeyahay marka way wanaagii lagu tartamay wanaagii way hadi jeer lagu tartamaya dhinaca xumaanta way taasna wata gabdhaha eedkan u hayaayo gabadha nin wanaagsan haysa hesha oo ilaahay siiya ma haysato inta badan taas ugu daran taas waxay taas wareeray tamika waa haysata ayaaba cishita bal wadigi doonaa kale waa maxay sababtu dirba wax xasuustaa qoyla meel ka shaqeyn jiray ayaa gabadhi ninkeeda telefoon u dirtay haye anagoo maqlayna haye marka ay tiraahdaa xabiibi maxaad inoo karisay maanta haye markaasuu yiraahdaa baasta iyo suugo aadiyaabi sidoo aan soo sameeyay haye marka soo tiraahdaa oo maqlayna and maalin kasta wax noo samaysaa baas baasta saan banacba steegi me muufadi baashi meelk ay tahay marka gabadhii haddii ninkeedu uu yahay ninka khayr qabaha ay dee cuntada ku ay sameynaya dee banaanka ula bixi kartaa telefoonka wax oran kartaa maanta maxaad noo samaysay marna way ka aamusi kartaa marka shaqada ka baxdo ayaa wixii dee ninkeedu u sameeyay laakiin tan waxay muujinaysaa inayna tusayso inay haysato nin wax u kariya oo iyadu ay banaanka taagan tahay sarkaalad ay sarkaalad fan marka tii ninka wanaagsan haysata inta badan taasay noqotaa oo ka abaal dhacdo ninkii oo si kale dadka u tusto tiraahda naal wuxuu u dubaa kan waan ugu ashbay tiraha dhinacii caydi bay maantii waxa ka walan ayay u bedeshaa waaye qurbaha marka la joogo kelmadda ugu xun ee raggu ay necab yihiin aan kuu sheegay iyo toddobarku necab yihiin haye ninku raggu waxay aad u necab yihiin marka gabadhu tiraahdo carruurta sii hay ma arkaraba madaxa qarxay qaadka ما أوراني حفلة بوسعتها إيمانس وإلا وما يحبالو سعتها هدي بقى مال قال ستر عيالك سياحي مركز بلابي مركز دقال بلابي برلمان لها انترفيو بان لها ما تيكرتيد ما يليو دقال بالك بلابي باي انمينس وينو كور ريغا ارنتا قبل انه waxa uu nacabtahay habeen dambe oo sabti aroos ma tiikar ayo taasoo dagaal ya taasoo dagaal la soo qorshaysay laba arrimood ba laba arkaro way nacbiin marka waxaan oranayaa iyagana gabdhuhuna de aroosyada iyo xafladaha qurbahan way had meelaha kama jirtee ha joojiyaan haye ama ha yareeyaan ama discussion ninkeeda kala sii hadlaano si quman oo wanaagsan isla fahmaan yay noqonin mid sabti kasta diyaara دل عصب والقالية ومشي تدير مع فنانة فنانة هيك صلاية هي نقطة لكن هالنقطة قف محترمة ضاع فاميلية هذين كفاميلي أما أصحابته بالله أي دلبنكران
ninkuna haddii gabadhiisu discussion ha kala galo inuu ciyaalka sii hayo isaga dhalay mararka qaarkood waxaad arkaysaa nin gabadhii ay kala tageen dabeetana 2 ciyaal ama 3 ciyaal bay u dhashay nin kaloo wanaagsan baa guursaday waxba iyo u dhalin saddexdii ninkii hore u dhashay ama 2 kamid ama saddexdiiba ayuu gacanta isagoo daadaheynaya oo loo soo shanleeyay ayuu wuxuu soo hormarayaa Starbucks makhaayad kii dhalay uu fadhiyo dabeetana daaqadu ka eegay subaha yarka waa ka raystayba kusulkoodii yaabisay kusulkoodii de sida soo shaqaystaan iyo dharkooda nin aan shaqaba ku lahayn ayaa gacmaha hayo oo baabuurtii ka ilaalinaya baabuurkii gelinaya marka isagu wuxuu isleeyahay sidana uu fiican wuxuu ku leeyahay mid khadara ayaa reerku loo soo diray oo ciyaalkii marba dhan wada inuu guur gaaray marka hoos laakiin inay ku tahay ma dareemayo ragga noocaas iyana waa inay tashadaan ciyaalka hadday aan meeshii sidaa ku ilaabin gabadhii ay kala tageen dhinaca la qabtaa ciyaalkii ka warhayo oo iskuulkoodii iyo kharashkoodii iyo arrimahoodii aanu odhanin ninka guursaday ayaa xaq u leh inuu hawsha maamulo barnaamijkeeni maanta inta ayaan ku soo gabagabeynayaa waayahay cali mar labaad iyo mar saddexaad ba aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waa kaftankii siyaasadda oo anigoo cali xaraara anigoo yaasiin ducaale waxaan kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo nolol kulanti